ويقلينو وجمعت لقوعي البحي براسما وجمعت لقوعي البحي براسما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله هذا يبرع لك النقضة وحن بالله بين جبتر كوجوهرية بوجا دوكسيك سرا يتكوجوس أجراس كوجوس رأي فون فور جبتر كوجوهرية حكوا بالله أنا organic chemistry مدمنا مقارنة دون هذا يبرع لك النقضة ما أنتوا حنفيرين إن هذا يبرع لك النقضة مركا introduction كا قيبته هرا جبتر كوكواد وكوسابسن organic chemistry بوغا wuxuu ka kooban yahay ilaa 5 chapter chapter koowaad waa organic chemistry chapter iska chapter ka labaad waa biochemistry chapter ka saddexaad waa oxidation reduction Rodriguez reactions chapter ka afraad waa chemical equilibrium chapter ka ugu dambeeyana waa waxa loo yaqaan nuclear chemistry هذا عبارة عن نقطة مركا وحنكون باللعبة حلو يقانو organic chemistry organic chemistry مركا لقى هذا وحليه هاي و science of carbon و science of carbon وأنا أركض دونا وحاول مهم سلبا قيبودو مهمة وهذا الكربون is functional group كواسن سفع وكذا لقى دونا marka maanta waxaan fiirin doonaa qaybta ugu horeeya oo chapterku ku bilaabayo science of carbon ayaan ka bilaabi doonaa hadoo eebaraale ka noqdo chapterskan sidoo kale kii biochemistry-ga oxidation reduction chemical equilibrium nuclear shantaas qaybood mid aan u arki doonaa marka waxaan fiirinaynaa marka ugu horeeya science of carbon marka laga hadlayo waxaa muhiim ah in la diraasayo wax loo yaqaan carbon waxaan ku bilaabaynaa properties of carbon carbon marka laga hadlayo waa element waay qaasatan waa non metal atomic number kiisa marka laga hadlayo waa 6 mass number kiisana marka laga hadlayo waa 12 atomic number waxaa laga wadaa number of protons mass number waxaa laga wadaa number of protons and neutrons sidoo kale carbon waxyaalaha uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu ku jiraa groupka loo yaqaano group 14 oo periodic table period 2 periodka labaad B block loo yaqaano
B block ayuu ku jiraa. marka laga hadlayo carbon waxa uu leeyahay waxa loo yaqaan isotopes. Isotopyada waxa laga wadaa waa atomyo kuwaas oo leh atomic number isku mid ah ku kala duwan mass number, ama si kala dhigno waa atomyo isku mid ka ah number of protonka ku kala duwan number of neutron. okay, sadarteed isotopyadiisu waa saddex nooc ugu caansan. saddexda nooc waxay yihiin C12, C13 iyo C14. afartaas qayb ayuu leeyahay carbonka marka laga hadlayo isotopyadiisa. waxaa la dhahaa carbon waxa lagu magacaabo waa tetravalence. tetravalence marka laga hadlayo waxa laga wadaa carbonka wuxuu awood u leeyahay waa arki doonaa wuxuu awood u leeyahay inuu qabsado 4 atomyo oo ah kala duwan. marka 4 atom inuu qabsado ayuu awood u leeyahay oo bound u la sameeyo. marka si aan u ogaano marka carbon waxa muhiim ah inaan sheegno wax loo yaqaano electron configuration of carbon. waxaan tilmaami doonaa haddii ay baraal ka noqdo electron configuration of carbon. saa darteed marka electron configuration ka carbon ayaa wuxuu door ku saaraa muhiimad ku saaraa chapterka koowaad marka laga hadlayo haddaan dib u xasuusano okay waxa ugu muhiimsan carbon sambalkiisa waa C. sambalkiisa maxaa waaye? sambalkiisa waa C. saa darteed waxaa lagu soo gaabi karaa qaybtan C6 2 alif waa dhihi kartaa, ama labada geesna kala geesidna ka qoraysa atomic numberka iyo mass numberka. okay, electron configuration. electron configuration marka laga hadlayo oo carbon maadaama atomic numberkiisu uu yahay 6 waxa leeyahay proton numberka iyo electron numberka waa isku mid. saa darteed wuxuu leeyahay carbon 6 electron iyo wuxuu leeyahay 6 proton. electron configurationka marka electron configuration laga yaqaan waxa muhiim ah oo laga hadlayo wax loo yaqaan quantum numbers. waxa muhiim ah oo laga hadlayo quantum number. waxaa jirta 4 quantum number si ardaygu u xasuusto dib u xasuusatid. principal quantum number, secondary quantum number, magnetic quantum number iyo wax loo yaqaano spin quantum number. groupkan waxay noo fududeyn doonaan inaan ogaano electron configurationkii. principal quantum number inta badan wuxuu ka helaa number of shells-ka marka laga hadlayo waxaa jirto 7 shells jira. inta badan waxaa lagu tilmaamaa xaruf ma lagu tilmaamaa number 1 up to 7 waa la dhihi karaa, k up to q na waa lagu magacaabo karaa. shell 1 shell 2 shell 3 shell 4 shell 5 shell 7 ilaa 5 shells. secondary quantum number wuxuu ka hadlaa wax loo yaqaano subshellska marka laga hadlayo waxaa ugu muhiimsan 4 subshell S, B, D iyo F. groupiskaas waxaa lagu magacaabaa subshells. magnetic quantum number marka laga hadlayo wuxuu ka hadli doonaa subshell walba how many orbits ayuu leeyahay. tusaale ahaan marka laga hadlayo S waxay leedahay 1 orbit, waxaan ka dhiganaa 1 box. B waxay leedahay 3 orbits. D waxay leedahay 5 orbits. F waxay leedahay 7 orbits. okay, saa darteed meeshan waxaan ogaanay
quantum numbers oo qaybta ugu hore principal quantum number inay jiraan 7 shell oo lagu tilmaami karo number ama lagu tilmaami karo waxa loo yaqaano xaraf K2Q marka shellka koowaad shellka labaad ay sub shellka marka laga fiiriyo S E B iyo D F ajiro orbitiska marka la fiiriyo number of orbit marka la fiiriyo S waxay leedahay 1 orbit B waxay leedahay 3 orbit and D waxay leedahay 5 orbit F waxay leedahay waxa loo yaqaano 7 orbit waxa jira spin quantum number wuxuu tilmaamaa orbit walba number of electron ka uu qaado number of electron ka uu xambaarsan yahay marka laga hadlayo number of electron marka la fiiriyo tusaalahan S waxay qaadi kartaa halkii orbit single orbit wuxuu qaadi karaa 2 electrons wuxuu qaadi karaa waxa loo yaqaano 2 electron saadarteeda S maxay leedahay marka 1 orbit 1 times 2 waxay noqonaysaa marka 2 electrons B maxay leedahay marka 3 times 2 waxay noqonaysaa marka 6 electron D maxay leedahay 5 times 2 waxay qaadanaysaa marka 10 electron 7 times 2 14 saadarteeda meesha waxaa noo soo baxay number orbit walba inta electron uu qaadi kara S waxay qaadan kartaa 2 electron B waxay qaadan doontaa 6 electrons D waxay qaadan doontaa 10 electrons F waxay qaadan doontaa 14 electron saadarteeda groupka markaas aan u fiirino waxa noo soo bixi doona wax loo yaqaan marka rules oo lagu magacaabo rules of electron configuration rule of electron configuration inaan fiirino electron configuration ka marka la fiiriyo waxa ugu horeeya Bowel principle afu principle oo kale wuxuu tilmaamaa shelliska qaabkay u kala hormaraan waxa loo soo gaabin karaa aan ku soo gaabin karnaa sas bis bisad bisfad waxaan rabaa ardayga inuu kasii faa'iidaysto rulka soo gaabinta okay S tusaale ahaan sameynayna marka rulkan waxa lagu soo gaabiyay qaabkay u kala horeeyaan energy ahaan u kala horeeyaan subshelliski qaabkay u kala horeeyaan qaabkay aan sameyn lahayd tusaale ahaan S aan ka bilaabayna numbereynayna kuwa iyada numbereynayna 1 2 3 4 5 6 7 S waa ka baxay tusaale ahaan S shell 1 ay ka bilaabataa B shell 2 ay ka bilaabataa D shell 3 ay ka bilaabataa F na waxay ka bilaabataa shell 1 shell 2 shell 3 shell 4 saadarteeda waxaan sameynaynaa lambareynayna marka annaga waxaan u baahannahay bas qaybaha hore oo ah electron configuration ka marka ka hadlayno B waxaan sameynaa waxaan bilaabaa shellka labaad 2 3 4 5 6 maxaa igu xiro D intee ka bilaabataa shellka saddexaad D3 D4 D5 D6 F xagee ka bilaabataa shellka afaraad F4 iyo F5 qaybtan waa soo gaabin lagu soo gaabiyo qaabka electrogram waxa lagu soo gaabiyo xuruufa loo sameeyo waxa ugu dhawaaqay sas bis bisad bisfad marka maxaa ka tagtay marka waxa ka tagtay xuruuftii vowelska laga tagay saadarteed meesha waxa kugu soo baxay qaabka electron configuration marka waxaan sameynaynaa carbon 6 ayuu leeyahay 6 markaan ka hadalno qaabka u sameynayno wuxuu noqon 1s 2s 2b electron configuration ka waxaan noo bilaaban waxa loo sameyn karaa saddex qaybood number 1 number 2 number 3 according shells according orbits according subshell hormari subshells according orbits okay according shells markaan fiirino
waxaan sameynaynaa marka shellska inta badan waxaa lagu helaa 2n square markaan dhaho n waxay u taagan tahay number of shellka marka aan haysto tusaale shellka koowaad marka 1 haduu yahay 1 square star 1 y times 2 marka shellka koowaad laba galayso marka carbon sameynayna shellka labaad 4 shellka 8 saas u soconaysa marka waxaan u baahanahay marka aan muhiimadii labadan qaybood dambe according subshells inaan tilmaamo iyo according wax loo yaqaano orbits according subshells marka laga hadlaayo waa inaan isticmaalo this subshell 1s 2s 2b tusaale ahaan hore u soo sheegnay s meeqa electron ay qaadaa 2 electron laban siina marka koranka saara s kala meeqa qaadaa 2 b meeqa qaadaa 6 laakiin ani 6 electron aan haystaa 2 iyo 2 iga baxday maxaa soo haray marka waxaa soo haray 2 according subshell markaan sameeynayo waa ka qaabkaas sameeynaa according orbits ka marka laga hadlaayo waa geometric shapes oo electronku ku dhex wareegsado oo ku dhex socdo orbit ka anaga waxaan ka dhiganay marka box aan ka dhiganay box le aan ku hoos sawiro marka tusaale ahaan s waxay leedahay 1 orbit sidoo kale this 1 orbit b laakiin waxay leedahay 3 orbit tusaale ahaan marka la sameeyo electron configuration ka s waxa qaadanaysan dhahnay spin quantum number wuxuu tilmaamaa in 2 electron oo ah 2 electron oo ah clockwise iyo anti-clockwise oo kala socdo electrons ka mar walba qaabkaas u sameynaysa okay this is waxaan sameeyay marka electron 2 electron orbit gashay maxaa soo haray marka midka ugu dambeeyay b waxay leedahay 3 orbit waxaan haysta marka maxay tahay waa 2 orbit waxaa jira marka rule waxaa jira oo Hornis rule loo yaqaano Hornis rule wuxuu tilmaamaa marka inaysan dhici karin 2 electron inay hal mar aysan gali karin hal orbit ayadoo aan loo qaybin orbityada hal aan loo siinin saadarteed marka labada orbitka koowaad ma galaysa maxay galay orbitka koowaad hal galaysa kan labaadna waxa galaya hal saadarteeda waxaan leenahay nidaamkan oo ah s oo laba wadata S1 oo laba wadata S2 oo laba wadata B2B oo hal iyo hal wadata shellka koowaad shellka dam maran yahay waxa loo yaqaanaa ground state ayaa lagu magacaabaa ground state ayaa lagu magacaabaa this is waa ground state saadarteeda awood wuxuu u leeyahay carbonkan marka wuxuu qaadan karaa oo qaban karaa oo kaliya laba wuxuu qabsan karaa laba shay bis ayuu qabsan karaa ground state markuu yahay waxa imaanaya wax loo yaqaano promotion of electron in la promote gareeyo maxaa la promote gareynaa marka waxa la promote gareynaa electronka ku jira 2s ku jira la promote gareynaa waxa loo promote gareynaa shellka ka dhiman oo loo yaqaan maxaa la dhahaa b orbitka ka dhiman b afwan orbitka ka dhiman saadarteed maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa hada halkan ku sawiro this is kan waxa ku jira idoon labadiisa electron ku jirayso kan waxa ku jiri doona sidoo kale hal maxaa la promote gareynaa marka hal electron la promote gareynaa haga loo promote gareynaa marka b orbital loo promote gareynaa marka waxay noqonaysaa 1 1 1 this is waxa lagu magacaabaa marka promotion of electron waxa jira qodob saddexaad oo muhiim ah oo ah qaybta aan rabno ah waxa loo yaqaano hybridization maxaa laga wadaa hybridization waxa waaye waa combination of orbit inuu orbit kale u tago si loo abuuro new orbit maxaa laga wadaa marka waa kan tusaale ahaan maxaa isku tagaaya marka s iyo waxa isku tagaaya iyo b tusaale ahaan wuxuu ahaa 3 orbit uu ka koobnaa kana 1 orbit uu ahaa waxa sameysmaaya marka maxaa sameysmaaya 4 orbit isku dhagan 1 2 3 4 afartan orbit oo sameysmay oo new-ga ah processka ay ku sameysmeen ayaa waxa loo yaqaan marka waxa lagu magacaabaa hybridization lagu magacaabaa saadarteeda marka maxaa dhacaya 4 orbit oo mid walba uu haysto muxuu haystaa hal electron oo haysto saadarteeda marka waxa lagu magacaabaa marka magaca isbedelaha marka waxay noqonaysaa
waxay noqonaysaa qaybtan waxay noqonaysaa waa kan waa 2b 2b2 laakiin qaybtan markaa joogtid maxaa waaye s halay wadataa b na maxay wadataa 3 marka waxay noqonaysaa sb3 okay this is waxaa noqon markaa waa sb3 qaybtaas waxa lagu magacaabo marka hybridization oo soo qaadana hybridization waxa laga wadaa marka in ay laba orbit isku tagaan markay midoobaan ay sameeyaan new orbit inay sameeyaan kaas waxa lagu magacaabaa orbitization marka meeshan waxa la leeyahay electronadan meesha ku jiro laba astaan ay leeyihiin ko waa equal energy number 2 qodobka kale muhiimka ah waxa waaye waa mid walba waxay sameyn karaan marka afar wuxuu la midoobi karaa mid walba oo kamid electronkan sharing wuxuu la sameyn karaa covalent bonding wuxuu la sameyn karaan with other elements for covalent bonding sameyn covalent bonding marka laga hadlayno waa sharing of electron electrona in la wadaago saadarteeda marka meesha laga hadlayo marka waxa leeyahay laba asaan naga soo baa inay isku energy yihiin sidoo kale inay yihiin ay sameeyaan marka for covalent bond inay sameeyaan oo ah covalent bond laga wadana waxa laga wadaa inay sharing sameeyaan electron sameeyaan qodobkan marka maxaa ugu muhiimsan warkaan dheerna hadaan soo gaabino marka electron configuration ka aan ka hadlayno oo lagu magacaabo carbon electron configuration kiisa waxa ugu muhiimsan in la tilmaamo qaybtan marka maxay tahay qaybtan waxay ahayd qaybihii hore aan isku xasuusinaynay qaybtan marka maxaa waaye waa inaad ogaataa kaarboonka marka joogtid subshell aad joogtid inuu ku eg yahay asiga b subshell b block uu ku eg yahay waa s maxay qaadanay laba electron b s1 maxay qaadanay laba 2s maxay qaadanay laba 2b waxay qaadanaysaa laba electron marka la joogo laakiin waxa loo yaqaano marka promotion la sameeyo waxa loo yaqaan qaybtaas waxa loo yaqaan ground state loo yaqaan promotion marka la sameeyo of electron la sameeyo s hal electron ka soo baxaya waxa uu imaanaa marka b uu imaanaa b maadaama ay haysatay laba electron kali orbitka dambe uu buuxsamaa hybridization waxa waa s na soo guuraysa ay u imaanaysaa marka xagee u imaanay marka muhiimadda waxa ah in lagu weydii karo marka definition ka ah hybridization waxa la dhahaa marka waa in orbit uu soo haajiraa oo soo guuraa oo ka soo guuraa si loo sameeyo new orbit loo sameeyo new orbits kaasna astaanta ay qaadan doona oo yihiin marka equal energy inay yihiin inay leeyihiin waxa loo yaqaan covalent bond for covalent bonds saadarteeda marka carbon marka la sawirayo waxa la leeyahay marka waa ka wuxuu sameyn karaa afar gacan ayuu leeyahay afartaas gacan uu awood u leeyahay marka inuu ku sameeyo wax lagu magacaabo oo ku qabsan karo other elements kale okay aan fiirino marka carbon wuxuu awood u leeyahay marka inuu sameeyo dhamaan wuxuu la midoobaa inuu la sameeyo single bond ama inuu la sameeyo double bond or triple bond hadii marka compound uu ku jiro marka waxyaalaha kale oo la midoobo marka elementada kale oo la midoobo haduu single bond ku la midoobo inta badan waxa loo yaqaan sigma bond loo yaqaan inta badan sigma bond markuu sameeyo electronada waa fixed electronada maxay yihiin waa fixed waa localized laakiin markuu carbonka bound la sameeyo other elements oo kula sameeyo double bond ama triple bond oo loo sameeyo marka electroniska waxay sameeyaan waxa lagu magacaabaa b bound lagu magacaabaa electrons waxay sameynayaan between the nucleus way dhaqaaqayaan this is a fixed group kan waxay noqonayaan marka move qodobkaas muhiim ah iyada marka hada aragtid carbon ama elements kale oo labadooda haduu dhamaan single bond ku haysto waxa lagu magacaabaa sigma bond haduu double bond ama triple bond oo isku haysta asiga ama uu ku haysto waxa lagu magacaabaa b bond this is group kan waa fixed group kan waxay yihiin waa kuwa sameynaya movement sameynaya okay intaas waxa ku dhamaan marka electron configuration key oo ah carbon waxaan fiirinaynaa waxa loo yaqaan forms of carbon formskiisa marka laga hadlaayo waxa la leeyahay waxa lagu soo gaabiyaa magaca waxa la dhahaa marka allotropes maxaa laga wadaa marka allotropes waxa laga wadaa waa elementiyo
oo same element ah oo laakiin different forms leh existence of different forms of the same element kaasa definition lagu dhigaa kaasa waxa lagu magacaabaa allotropes allotropyada marka waxay leeyihiin physical chemical properties ku mid ah laakiin physical property oo kala duwan ama xagga arrangementiga ay ku kala duwan yihiin inta badan carbon marka laga hadlaayo waxa la leeyahay wuxuu leeyahay laba form oo allotropes ayuu leeyahay waxa loo yaqaano crystallization iyo waxa loo yaqaano amorphous crystallization marka laga hadlayo waa groupiska nooc qoran buuga nooc qoran saddex nooc ayaa caan ah diamond waxa loo yaqaano graphite iyo waxa loo yaqaano buckyball carbon marka crystallization uu yahay waa qaabkaas loo marka waa saddex form ayaa caan ah marka diamond form graphite form iyo waxa loo yaqaan buckyball saddexda buug ku qoran waa saddexda groupkan kale oo amorphous ka ah waxa jiro carbon black core iyo wax la mid ah marka saddexdan ka hadli doona diamond marka diamond aan ka hadlayno diamond asiga waa tetrahedral carbon wuxuu isku haystaa qaab oo ah afar gees tetrahedral network waaye carbonadu waxay isku haystaan tetrahedral network ay isku haystaan inta badanna waxa waaye waa strong waaye aad u xoog badan yahay boundiga isku qabsanayaan aad ay u xoog badan tahay inta badan diamondka warka waxa la leeyahay structure-kiisa waa tetrahedral network waaye waa very strong ayaa ka dhigaa tetrahedral very strong ayuu ka dhigaa carbonki sidoo kale qodobka kale muhiimka waxa waa good conductor waaye of heat laakiin wuxuu kale ku fiican yahay waxa loo yaqaan waa poor conductor of electricity marka laga hadlaayo ma ku wanaagsana sidoo kale waxa la leeyahay diamondka marka laga hadlaayo waxa la leeyahay high melting point ayuu leeyahay high melting point barta uu ku dhalaalo aad ay u sareysaa waxa ku xiga graphite marka laga hadlaayo asiga qaabka uu sameeysan yahay waa layered oo ah hexagonal oo ah layered qaab layer ahaan u sameeysan ama sheet u sameeysan waaye oo ah layered laga sameeyay marka sheet of oo ah hexagonal kaas ayuu ka sameeysan yahay carbon isku haysto inta badan asigana waa soft wana black appearance marka laga hadlaayo graphite waa soft waaye wana black appearance waaye sidoo kale waxa lagu yaqaanaa graphite inuu yahay lubricant sidoo kale waxa la leeyahay waa noocyada wuxuu ka mid yahay weak bound leh aad u leh marka okay nooca ugu dambeeya oo loo yaqaan buckyball-ka marka laga hadlaayo buckyball-ka wuxuu ka kooban yahay 60 wuxuu ka kooban yahay carbonis 60 carbonis uu ka kooban yahay carbonada waxay ka kooban yihiin wax loo yaqaano hexagonals oo 20 ah iyo pentagonal oo asigana 12 ah buckyball-ka marka laga hadlaayo 20 hexagonal wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaano 2 pentagonals marka waxa jirta muhiim qaabka isku haystaan arrangementiga isku haystaan marka laga fiiriyo waxa leeyahay pentagonal oo shan geesla ah marka laga fiiriyo pentagonal kale kuma dhigi karo marka koowaad inta badan waxa leeyahay soccer ball ayuu kale u egyahay marka qaabka ay sameysmaan sida kubadda oo kale banooniga ay u egtahay 12 marka laga hadlayo groupskan mid pentagonal kale kuma dhigi karo sidoo kale waxa ogaataa pentagonal wuxuu qabsan karaa 5 hexagonals ayuu qabsan karaa 5 hexagonal oo kala duwan ayuu qabsan karaa marka laga hadla marka hexagonalka waxaan leenahay asiga wuxuu qabsanaa 3 oo ah pentagonal ah iyo wuxuu qabsanaa wax loo yaqaano 3 oo ah hexagonal qaabkaas ay arrangement u sameynayaan waxay sameynayaan wax loo yaqaano soccer ball sida kubadda oo kale ay u sameysmaa marka qaabkaas ayuu leeyahay asiga waxyaalaha lagu yaqaan waxa kamid ah buckyball-ka
inuu lubricant uu yahay superconductor of inuu yahay waxa kale lagu yaqaan astaamihiisa oo muhiimka lagu yaqaan waxa kamid ah in uu yahay marka organic solvents ahaan loo isticmaalo waxa leeyahay basketballka wuxuu kamid yahay waxyaalaha hadda technology isticmaal loo yaqaano waxa lagu magacaabaa technology loo yaqaano marka waxa lagu magacaabaa nanotechnology maxaa la nanotechnology nanotechnology waxa technology science cusub waaye oo hadda inta badan waxa la isticmaalaa moleculeska atomyada la isticmaalaa inta badan waxa lagu dhajiyaa robots iyo wax la mid ah lagu dhajiyaa marka waxa leeyahay marka basketballka groupka waxa la isticmaalaa nanotechnology groupiskaas marka laga hadlayo marka waa saddexdii qaabood oo ah diamond graphite iyo basketball oo aha marka noocyada uu lahaa allotropies marka waxa muhiim ah marka inaad ogaatid allotropies maxaa la dhahaa definition-keeda allotropies waxaan dhahnay waa elementiyo waa different forms ay leeyihiin waa same element waaye different forms ay leeyihiin oo formskaasoo physical property-ga ku kala duwan chemical property-ga isku mid ka ah noocyada ugu caansan marka maxaa waa diamond iyo graphite iyo basketball oo mid walbana astaantaas uu leeyahay intaas marka ka baxno waxa ugu dambeeyay qaybta ugu dambeeyay cashirka oo chapter-ka wuxuu tilmaamaa marka carbon-ka maadaama astaan uu leeyahay asiga single bound isku qabsan karo ama double bound isku qabsan karo ama triple bound isku qabsan karo elementiyada kalena saas oo kale uu qabsan karo carbon-ka wuxuu leeyahay wuxuu sameyn karaa millions of wuxuu sameyn karaa compounds ayuu sameyn karaa wuxuu sameyn karaa millions of compound ayuu sameyn karaa waxaan u suurtagelinaya qabsashada isku qabsan kara asiga single bound double bound ama triple bound ama uu ku qabsan karo elementiyada kale sida hydrogen oo kale la falgali karo oxygen oo kale iyo groupiskaas oo la falgali karo taas ay u suurtagelinaysaa marka in oo carbon-ka uu sameeyo marka wax loo yaqaano millions of compounds intaasi waxa ku ag qaybta hore oo ah chapter-ka oo koowaad marka waxa muhiim ah intaan ka bixin aan sheega marka qaybahani oo diamond-ka iyo graphite iyo basketball-ka marka laga hadlayo diamond-ka inta badan sigma bound isku qabsaa waa single bound waaye dhamaantiisa graphite-ka sidoo kale laakiin basketball-ka marka laga hadlayo waxa jira marka inta badan graphite-ka wuxuu isticmaalaa leeyahay 1 ayuu isticmaalaa for afarti carbon oo lahaa afarti bound oo lahaa wuxuu ka isticmaalaa 3 uu ka isticmaalaa marka laga hadlayo graphite laakiin basketball-ka marka laga hadlayo asiga waxa la leeyahay double bound hal double bound ay jiro iyo 2 waxa jira wax loo yaqaano single bounds ayuu sameeynaa marka intaasi waxa ku dhan qaybtii koowaad oo ah wax loo yaqaano chapter 1 qaybta uu kaga hadlay marka wax loo yaqaano carbon